guddiga adeega diyaaradaha Soomaaliyeed ayaa sheegay in 6 bil ee soo socota aysan sii shaqayn karin haddii aan laga qaban diyaarado ay ku jiraan Ethiopian Airlines kuwa laga leeyahay khaliijka iyo kuwa kale oo gobolkan ka howlgala waxaana ay sheegeen in shaqadii ay qaban lahaayeen diyaaradleyda Soomaaliyeed iyagoo ay la wareegeen guddigu waxa ay sidoo kale cadeeyeen in aysan marna diidaynin in diyaarado caalami ah ay yimaadaan Muqdisho laakiin sharci darro ay tahay sida ay yiraahdeen in gobolada Soomaaliya ay ka shaqeeyaan diyaarado caalami ah taas beddelkeeda waxa meesha ka baxay sida ay yiraahdeen shaqadii ay qaban jireen diyaaradaha wadaniga ah ama dalka laga leeyahay xasan xaashi oo ah gudoomiyaha guddiga adeega diyaaradaha Soomaaliyeed ayaa sheegay akhriyayna war-saxaafadeed ay ku midaysan yihiin waxaana dhanka kale uu cadeeyay in dawladda Soomaaliya laga rabo inay wax ka qabato arrinkan heshiiskaas oo ahaa in Somali Airlines ay 2 duulimaad ay ku tagto Addis Ababa asbuucii sidaas si la mid ahna Ethiopian Airlines ay 2 duulimaad ku timaado Muqdisho asbuucii balse Ethiopian Airlines ay hadda markay doontana jebinayso ama ay ka talaabayso heshiiskaas sharciga iyo qawaaniinta dalka ayaa ilaaliya xuquuqda siiyana shirkadaha wadaniga ah ee diyaaradaha damaanad in aan dal kale ama shirkad kale kula kicin tartan aan xalaal ahayn oo aan dheelitirnayn shirkadda Ethiopian Airlines iyo kuwa khaliijka waxay cagta mariyeen tacab iyo maaliyad ummadda Soomaaliyeed iska leedahay waxay kiciyeen oo shaqada ka saareen shirkado badan oo wadani ah kuwa kalena waxay geliyeen khasaare aanay ka soo kaban karin khaasadan shirkadda Ethiopian Airlines iyada oo ka ashanaysa hay'adda duulimaadka rayidka ah ee Ethiopian EK waxay isticmaalaan khidado fool xun oo aanay ogolayn in shirkadaha Soomaaliyeed helaan xuquuq ay ugu duulaan dalka Itoobiya waxaa kale oo ay boobeen xuquuq u astaysan shirkadaha Soomaaliyeed ee wadaniga ah iyagoo isticmaalaya xuquuqda shanaad ee 5 freedom ee duulimaadyada taasoo ah in shirkad ajnabi ah timaado magaalo ka mid ah dal ugana sii gudubto dal saddexaad b dhabarjabinta shaqo abuurka wax soo saarka iyo kalsoonida shacabka shirkadaha diyaaradaha rayidka ah ee Soomaaliyeed airline operators iyo wakiilada safarada travel agents waxay shaqo toos ah siiyeen dad lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo qof waxaana si dadban ugu nool dad aan ka yarayn 70 ilaa 90,000 oo qof waxay dalka soo geliyaan dhaqaale badan waxay dhiirigelin iyo kalsooni siiyaan dhalinyarada faraha badan ee rajo la'aantu saamaysay marka la burburiyo shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliyeed waxaa dhimanaya shaqo abuurka iyo wax soo saarka ummadda sida la wada og yahay diyaaradaha shisheeye ma sameeyaan shaqo abuur waxayna qaataan dhaqaale ma sameeyaan shaqo abuur waxayna qaataan shaqaale iyo xafiisyo kooban diyaaradahooduna garoonka waxay taagnaadaan wax ka yar 1 saac si ay u yareeyaan dakhliga dalka ka soo geli lahaa c tala soo jeedin heshiiska ka dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya kama turjumayo xaaladda iyo danta duulista hawada rayidka ah ee Soomaaliyeed dib ha loogu noqdo 2 yaan shirkadaha ajnabiga ah la siin xuquuq u dhowrsan shirkadaha wadaniga ah sida xuquuqda duulimaadyada ee 5 iyo 6 5 and 6 freedom Number 3 shirkad aan ku iman heshiis 2 darafla ah yaan la siin xuquuq duulimaad traffic rights Number 4 shirkad waa in lala tashado marka la bixinayo xuquuq duulimaad
daneeyayaasha howlaha duulimaadyada sida duulimaadyada rayidka ah sida hay-adda aviationka ama hay-adda duulista hawada. b guddiga adeega shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed AOC. c shirkadaha diyaaradaha waddaniga ah. d rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. waana in lala wadaago fikirka go'aan qaadashada sharciyadda duulimaadyada, xuquuqda heshiisyada, ilaalinta iyo dhowrista horumarka shirkadaha waddaniga ah ee diyaaradaha iyo kuwa industry-ga duulimaadyada aviation industry. waana in uu muuqdaa doorka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya iyo guddiga gaadiidka duulista hawada, dekedaha, howlaha guud, tamarta iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. shanaad dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ha ka shidaal qaadato sida mintidnimada ah ee dowladda Itoobiya iyo kuwa kale ee adduunku u ilaalinayaan horumarka iyo xuquuqda waddaniga ah ee shirkadahooda. war-saxaafadeedkaygu maanta intaas ayuu ku eg yahay. guddiga adeega diyaaradaha Soomaaliyeed mas'uul kale oo u hadlay oo lagu magacaabo Mukhtaar Xamuud waxaan weydiinay sababta kaliya ay u bartilmaameedsanayaan Ethiopian Airlines iyada oo diyaarado kale caalami ah yimaadaan Muqdisho. waxaana uu ku jawaabay waxay isaga soo galayaan ayagoo ku tumanaya xuquuqda diyaaradihii shirkadaha Soomaaliyeed 30 sano soo shaqeynaya. marka gaar ahaan shirkadda Ethiopian Airlines oo aan si gaar ah farta ugu muuqan diyaaradaha khaliijka ka mid ah, kuwa Ethiopian Airlines ka mid ah, kuwa kale to golfka ka mid ah, kuwa gobolka ka mid ah, way tiro badan yihiin. kuna nidaamkii caalamiga ku socdaan oo la yaqiinay oo ah inay interpoint ka soo galaan dalka, interpoint ay ka baxaan oo magaalo to magaalo ay ka shaqeeyaan. walaacan ay qabaan guddiga adeega diyaaradaha Soomaaliyeed waxa uu soo ifbaxay muddooyinkii dambe, waxaana baarlamaanka Soomaaliya oo codka shacabka ku fadhiya sida yiraahdeen xarunta golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ka dalbadeen in dawladda Soomaaliya ay ku cadaadiyaan in wax laga qabto diyaaradaha caalamiga ah sida Ethiopian Airlines oo gobolada Soomaaliya ka shaqeynaya. Cali Aadan Muumin, goobjoog garoonka diyaaradaha Muqdisho.